الرحمن الرحيم كله طبعا oo wanaagsan ku soo dhawaada warbaahinta horusocod media oo mar walba ka daawataan warbixinada arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda. Warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa gabadhii saaxiibteeda u guurisay ninkeeda Cabdallah xaaska koowaad ee Xasnad ayaa maanta sheegtay in Sara iyo Xasnad ay isqabeen bilooyin ka hor fashil ayaa dhacay. Guurka Xasnad iyo Sara wuxuu ahaa qarsoodi qoyska Sara ayaa ka murugaysan waliba diidan guur ee la sameysay Xasnad. Sara ooynaysa ayaa sheegtay in isbitaal loola cararay ay qaaday cudur depression-ka arrintan oo socod darteed wayna isku buuqday iyo cafiga dhammaan qoyskayga dadkayga walaashay Cabdallah ma aqaano si aan ahay xanuun maskaxiyan ayaan dareemayaa. Cabdallah ayaa sheegtay in Xasnad uu gabdhaha ku qasbayay inay ka tagaan dhaqamada diinta Islaamka. Shaydaan ayaana qaaday dhaqamada Xasnad ee dhanka guurka ma ahan mid la aqbali karo. Waxyaabo been ah ayuu igu qancin jiray oo aniga aan ka rumaystay. Waxay hadda u badan tahay in qoyska careysan ee Sara ay ka furi doonaan Xasnad. Sara walaalkeeda Muniri ayaa sheegay in gabar 21 sano jirto uu aqliga ka haday Xasnad waliba been iyo waxaan jirin ayuu ku dhaadhicin jiray. Cabdallah ayaa iskaga tagtay Xasnad dib ugu laabatay reerkeeda xaruurta. waxay waqtigan loogu tagay Xasnad lama oga waxay sameyn doonto Cabdallah oo ka careysan khiyaanada uu ku sameeyay saaxiibteeda. Adiga maxay kula tahay sheekadan oo dadka wareersay maalmaha baraha bulshada aad iyo aad u qabsatay? Waa arrin la yaab ama ka ku noqotay qof walba oo ka dambeeya jacaylka iyo guurka. Waa arrin adduunka oo dhan qabsatay waana sheeko taariikhda gali doonta. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar ila wadaag asxaabtaada. mahadsanid.